بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامجكا xogaha xaqiiqda ciyaaraha ee aad ka daawataan janaalka bartamaha May qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida xulka qaranka Ocean Stars ayaa guul weyn ka soo hooyay Zimbabwe sidoo kale baro magacyada ciyaartoyda guusha weyn ka soo hooyay xulka qaranka Zimbabwe FIFA oo ku dhawaaqday 55 xidig u sharaxan abaalmarinta kooxda sanadka 2019 ee lagu magacaabo FIFA Pro World XI dabcan anigu waa Ibrahim Jamuni janaalkuna waa bartamaha May xulka qaranka Soomaaliya ayaa guul weyn oo lama ilaabana xalayta ka gaaray dhigooda Zimbabwe lugta hore ee isreebreebka koobka adduunka 2022 wiilasha Ocean Stars ayaa hal gool eber ku garaacay Zimbabwe oo Soomaaliya ka sareysa 90 boos marka loo eego dhanka qiimeynta FIFA waxaana kulankii ka dhacay garoonka Ilhaaji Hassan Guleed Abtidoon ee dalka Djibouti xulkeena guusha ku gaaray hal gool eber waxaana goolka looga mahadcelinayaa weeryahanka kooxda Elman Anwar Sidcal Shakunda waana guushii ugu horeysay oo ay Soomaaliya ka gaadho kulan isreebreeb tan iyo guushii ay ka gaareen Kenya isreebreebka koobka qaramada Afrika sanadkii 1984 sidoo kale waa guushoodii ugu horeysay abid ee isreebreebka koobka adduunka waana guushii ugu horeysay ee ay gaaraan tan iyo bishii Janaayo sanadka 2009 haddaba xulka qaranka Soomaaliya ayaa maalnimada Isniinta ay foodii nagu soo hayso waxa ay booqan doonaan Zimbabwe oo u farqaniinsan Soomaaliya doonaysan inay cardaadaqada ka dhigto dhanka kale magacyada ciyaartoyda Soomaaliya iyagu ugu yimaaday dibadda Soomaaliya ayaa looga dabaaldegay guusha ay xulka qaranka Ocean Stars ka soo hooyeen ciyaar shalayta ka dhacday dalka Djibouti ciyaartan waxa isaga hor yimaaday kooxda Soomaaliya iyo kooxda Zimbabwe waxa ayna ahayd isaragii ugu horeeyay isreebreebka tartanka adduunyada 2022 lagu qaban doono wadanka Qatar haddaba magacyada ciyaartoyda Soomaaliya ee dibadda ka ciyaara kuwaasi oo u badnaa ciyaartoydii ka adkaaday Zimbabwe lambarka labaad xidiga wata waxa lagu magacaabo Abdi Maxamed kooxda lagu magacaabo Memphis ayuu u ciyaaraa wadanka USA booska garabka midig iyo garabka bidix ayuu ka xamaashaa xidiga lambarka saddexaad waa Yonis waxa uu ka ciyaaraa garabka bidix ee daafaca waxa uu ka tirsan yahay naadi lagu magacaabo Trizel waxa uu ka yimaado wadanka Norway lambarka afraad waa Maxamuud Cali Maxamed daafaca dhexe waxa uu ciyaaraa kooxda lagu magacaabo Curzon Ashton dalka Ingiriiska UK ayuu ka yimaaday lambarka shanaad waa Axmed Sayid Axmed daafaca dhexe ayuu ka mid yahay waxa uu ciyaaraa naadiga lagu magacaabo Fontaine waxa uu ka yimaado dalka Switzerland lambarka lixaad waa Cabdulaziz Yusuf booska garabka midig ee weerarka naadiga lagu magacaabo Halifax Hanris FC ayuu ciyaaraa ee ka dhisan dalka Canada lambarka toddobaad waa Fahad Ismaaciil waxa uu ka ciyaaraa qadka dhexe waa koox la'aan ciyaaryahankaasi waana ciyaaryahan cajiiba lambarka sideedaad waa Abdulsamed Abdullahi kooxda lagu magacaabo FT Dembosh ayuu ka tirsan yahay qadka dhexe waa uu ka ciyaaraa waxa uu ka yimaaday Netherland ayuu ka yimaaday ciyaaryahankaasi lambarka tobanaad waa Umar Maxamed weerarka dhexe ayuu ka qayb yahay naadiga lagu magacaabo Greenville ayuu ka tirsan yahay dalka Mareykanka ayuuna ka ciyaaraa ciyaaryahankaasi sidoo kale ciyaaryahanka lambarka 12aad xirtay ee Maxamed Abuukar waa weerar isna waxa weeyaan ciyaaryahankan koox la'aan sidoo kale lambarka 15aad waa xidiga lagu magacaabo Abel Gili Maxamed daafac ayuu markaas ka ciyaaraa hadda waa koox la'aan laakiin wuu ka soo ciyaaray horyaalka Talyaaniga xidiga lambarka 16aad wata ee Axmed Cali Maxamed qadka dhexe ayuu ka ciyaaraa The Beryl FC ayuu noo ciyaaraa dalka Qatar ayuu ka yimaaday waa ciyaartoy cajaa'ib ah wacdar badan ayayna ka sameeyeen kulankii shalayta ee ka dhacay dalka Djibouti garoonka Ilhaaji Guleed kulan ku soo idlaaday hal gool iyo waxba ay xulka qaranka Ocean Stars kaga yaabsadeen adduunka idil dhanka kalena FIFA waxa ay ku dhawaaqday 55 ka xidig u sharaxan abaalmarinta kooxda sanadka 2019 waxaana ciyaartoydaasi ku jira Ronaldo Messi Son sidoo kale Griezmann Azad iyo ciyaartoy dhowr ayaa ku jirta waxaana markaas ugu cadcad midkood Leo Messi iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo iyagu maalmihii u dambeeyay abaalmarinada inta badan ku yara sidoo kale Mohamed Salah ayaa qayb ka ah Virgil van Dijk Fabinho Firmino sidoo kale Luis Suarez Casemiro iyo kuwa kale Ramos uu qayb ka yahay
ayaa ku jira lama soo koobi karo waa 55 ciyaaryahan lama soo koobi karo dabcan inta ayaan ku soo afmeerina barnaamijkeena xogaha xaqiiqa ciyaaraha oo aad kala socoteen channelka bartamaha May hadii ay tahay markii kugu horeysay booqashadaada halkan fadlan subscribe saar taaba calaamada like aad ugu mahadsan tahay la wadaag asxaabtaada tan iyo barnaamijkan kiisa xiga nabadgelyo